ku soo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkayga ugu doorka roon. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay oo daahfuray 16 bari ee koortaga dacadiga jinsiga. wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland oo xaflad dhiirigelin u sameeyay dhalinyarada isxilqaamayaasha waan awoodnaa. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dawladda Puntland oo deegaano ka tirsan gobolka Sana'a ka dhagax dhigay saldhig ciidan. gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Jabuuti oo sheegay inay garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya kadib khudbad uu ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliya. wararkan dibadda idinkaga haynana waxaa ka mid ah dawladda Bangladesh oo faahfaahin ka bixisay dib u celinta qaxootiga Rohingya. magacaygu waa Mukhair Cabdiwali Jaamac waxaan la socodsiin doonaa qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan hase ahaatee qadar adeega bulshada. FJ Group waa midowga shirkadaha muwaafaq horseed iyo saabir waxayna bulshada Soomaaliyeed u hayeen raashinka qaybihiisa kala duwan sida baastooyinka Basto Nova, Basto Pronto, Basto Florida, bariiskana waxay hayaan bariis Nuur, bariis Mumtaz, basmatiga noocyadiisa kala duwan, sonkorta Rinoka, bur dahabi, bur Dubai, caanaha Amis, saliidda Hayaat, caleenta dhadhanka macaan ee caleen Abbas iyo waliba yaanyo mudasha. wixii faahfaahin intaas dheerna kala xiriir FJ Group midowga shirkadaha muwaafaq horseed iyo saabir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. isku soo noqod wanaagsan warkii oo faahfaahsan. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Injineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay ayaa daahfuray 16 bari koortaga tacadiga waxaana madaxweyne ku-xigeenku sheegay inay dawladdu maxkamadda tigsan doonto cid walba oo geysata tacadi jinsi. wariyaha Cabdirasaaq Xasan Faarax Cabsaaqtaki ayaa warkan inoo faahfaahinaya. loo geysto waa milyuun waa in loo wada baxo boorar laga qoraa bulshada baaq loo sameeyaa baraarujina hay'aduhu gacan ka geystaan gargaar la hubo culimadiinka iyo intay caaqiladu kacaan ciwaanka ku qora sidii loo xakamin lahaa. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay ayaa ka daafuray magaalada Garowe ololaha ka dhanka tacadiga oo 16 bari ee soo socota lagu wado in looga hadlo noocyada tacadiga ka dhaca Puntland iyo sida looga hortagi karo. daafurka ololahan waxaa goobjoog ka ahaa wasaaradaha arrimahan ay quseeyaan ee dawladda Puntland sida wasaaradda haweenka, wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga. wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland Maryan Axmed Cali oo furitaanka barnaamijkan ka hadashay waxay sheegtay inay cod dheer ku sheegayso in loo midoobo qofkii tacadi geysta iyadoo taasi ka duuleysana waxay sheegtay inay xarumo ka furatay wasaaraddu inta badan gobolada Puntland. madaxweyne ku-xigeen waxaan maanta cod dheer ku dhawaaqayaa in dhammaanteen aan dhankan noqono qofkii xadgudub u geysta qof haween ah inkastoo ay dhacdo marar dhifa in loo geysto qof lab ah hase yeeshee haweenkaad u badan kuwaasoo ah hooyada walaasha xaaskaada iyo gabadhaadaba. madaxweyne ku-xigeen wacyigelinta ka sokow waxay wasaaraddu si ay maalintan oo kale u xoojiso ama u cirib tirto waxay samaysay waxyaalo badan. madaxweyne ku-xigeen waxaan kuu sheegaynaa inaan furnay bishii u dambeysay hadda bishaan October iyo November inaan kala furnay aan ka furnay xafiis wasaaraddu ay leedahay degmada Taleex. wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad ayaa isna sheegay in wasaaradda amnigu ay diyaarisay ciidamada arrintaasi ka hortagi lahaa. wuxuu sidoo kale intaasi ku daray inay diyaar yihiin ciidamadii baaritaan samayn lahaa haddii tacadi dhaco. wasiirka amni ahaan waxaa jira hadeer si ciidankeena booliiska gaar ahaan qaybta CID-da tababar loo siiyo ku isticmaalaan dembigaas falka dembiga oo halka ka dhacay in la xaqiijiyo oo la ogaado xaqiiqatan qofkii dembiga sameeyay inuu isaga yahay iyo in kale. waxaa jira cilado dhaqanku keeno oo ah dumarkeenu ilaahay xishoodu ku abuuray awdiis haddii xataa dib loo geyso inay qarsadaan oo aanay sheegin oo investigation iyo booliiska markay u tagaan waa aaminsan tahay aniga maaha waa dhaqan awgeed waa xag dhaqan weeye iyo xishood laakiin waxaa fiican inaan la qarin
wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dowladda puntland cabdifataax xasan xuseen waloore isna waxa uu xusay in wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diintu ay sharciyo arrintan ka hortagaya diyaarisay isagoo sidoo kale ballan qaaday inuu cadaalad heli doono qofkii tacadi la kulmaa. run ahaantii annaga ka wasaaradda cadaalad ahaan waxaanu hadda baahintiisii wadnaa xeerkii lagula dagaalami lahaa tacadiga dumarka. wax sharciga ka sarreeya ma jiraan, cid walba sharcigaasi saxa loogu qaadayaa. waxaan ka wasaaradda cadaalad ahaan ballan qaadaynaa aan hortiina insha allah jecel inaan ka ballan qaado qof walba oo hooyo ah oo tacadi la kulanta cidda u geysata inaanu cadaaladda hor keenno insha allah. madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayaa sheegay in diintu ay xarimtay tacadiga, sidaasi darteedna dowladda puntland ay sharciga marinayso kuwa hadda falalka tacadiga ku eedaysan ee ku xiran xabsiyada puntland ciddii hadda kadib ku kacdana sidaasi oo kale ay la kulmi doonto. يعني دينتو ما وقلا تعدي نوع دونا بها هذا نوله إن لو جستو ولي بخاصة دمرك وحانوه الرئيسين يا رنتي إن كتعسيديو يعني هوشي كل عدي فايسا قبل يقدم بيسي تعدي لكن وحنكون فرح سنة نكيو جست ما أنت إنه كعنتي إنه كتشلو waxaan u sheegayaa dawladda Puntland inaanay marnaba ogolaan doonin in dumarka tacadi loo geysto. ninka geysanaya miyuusan ahayn nin hooyo dhashay ama hooyo u dhashay ama walaal la dhalatay. waxaan leeyahay dadkii geystay iyaga laftoodu wixii la helay dalku waa ballaaran yahay. dawladdu inch kasta oo dhul ah oo Puntland dawladdu ma joogto. waxaan codsanaynaa dadweynaha dawladdu waa shicibka weyn. haddii shicibku damco inay hawshan waxna kala qabtaan dawladda waa la soo afjari karaa runtii. waxaan leeyahay qof kasta oo qof tacadi u geystay meesha ugu dhow ee askari joogo in loo soo sheego. annana waxaan ballan qaadaynaa inaan soo qabanno. isla markaana cadaaladda la horgeeyo meel aanu dib uga soo bixin isagoo gobobayo marmarka qaarkood dadku wuxuu gaadhaa xilli uusan nabsadba u haynin. يعني ويدا هذا أنت يقول هذا وكنت كنايا إلى وهير كقارنا كسر بحمايو شالك. عبد الرزاق حسن فرح بنتنا تي في قروي. wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdullaahi Saciid Caarshe ayaa xaflad casho sharaf u sameeyay dhalinyarada isxilqaamayaasha qaybtooda waan awoodnaa ee magaalada Garowe. xafladani oo ahayd xaflad dhiirigelin ayaa waxaa ka qayb galay warkan inoo haya wariyahayaga Jacfar Macalin Maxamed. dhalinyaro isjecel oo isxilqaantay baan nahay. isku mid ah ra'yiga oo aragtida walaalnimo aragtida wadaninimo ay walaalnimayseen si loogu muujiyo ogaanshaha shaqo ay qabteen dhalinyarada waan awoodnaa ayaa keentay sameynta casho sharaf uga timi maamulka sare ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdullaahi Saciid Caarshe dhaqaaji ayaa magaalada Garowe munaasabadan casho sharafka ugu sameeyay si uu ugu dhiirigeliyo dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland qaybtooda Garowe oo dalka ka wada barnaamijyo iska wax u qabsa oo qayb weyn ka ah horumarinta Puntland. madaxda iyo dadweynihii ka soo qayb galay waxa intii ay socotay munaasabada la isweydaarsaday talooyin ku aadan horumarinta dalka. si gaarana waxaa loogu ammaanay dhalinyarada waan awoodnaa shaqooyinkii muhiimka ahaa ee ay wadanka ka qabteen. gudoomiyaha ururka dhalinyarada waan awoodnaa Umul Khayr Jaamac Awad oo kulankan furtay ayaa sheegtay in dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland ay doonayaan inay dalka ku soo kordhiyaan hab habboon oo dhisme iyo bilicba leh. haddii 30 sano ka hor ay ahaayeen dhalinyaradu dumiyaal 30 sano kadib waxaan rabnaa dhalinyaradu inay noqdaan dhisayaal. waxyaalaha ay ka shaqeeyaan waxa weeye bilicda quruxda u gargaaridda dadka tabaalaysan markaas meesha ay ku nool yihiin caasimadda Puntland. waxaan rabnaa caasimadda Puntland inay noqoto caasimad la tagta caasimadaha Afrika. waxaan kaloo bogaadinayaa isxilqaamayaasha dhan ee ka jira Soomaaliya ilaa Muqdisho meel walba ka galay. waxaan rabnaa inaan soo celinno barnaamijkii Soomaaliya ee ahaa iska wuxuu qabso oo dhalinyaradu aaminto inay dalkooda dhisan karaan qofin karaan iyagoo marka ka madax bannaan gacmo shisheeye. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa xusay inuu la shaqeyn doono dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland. runtii anigu waxaan inii bixiyay وهلانياش دناها جرو كم قاعدير وأنا ودنا وحنا حقيقة
oo been aan ahayn oo makhraatimo doonto ah inaad awoodaan waana asiibteen waana awoodaan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala intaas iyo in ka badanba inaad qabataan waana in garab taagannahay si kal iyo laaba sidoo kaleeto waxaan rajaynayaa in aydan wax allaale dadku binaadamka markay shaqeynayaan waxa arkayaan caqabado fara badan waxa arkayaan culaysyo fara badan waxa arkayaan wax walba oo shaqada hakad gelin kara waxaan ka rajaynayaa sida aad hadda quruxda badan aad isugu duuban tihiin sida wanaagsan oo in ka muuqata in sidaas ku sii wadaan waxa dhici jirtay in kulamo badan la qabto dhalinyarada tahriibta lagaga joojinayo kulamo badan la qabto dhalinyarada qorayga lagaga dhigayo kulamo badan la qabto dadka lagu wacyi gelinayo waxa moodamaanta inaynu diyaar garownay oo inagu qabanayno wax qabad oo inagu qabanayno iska wax u qabso taas waa horumar u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland Cabdulaahi Siciid Caarshe Dhaqaashe ayaa amaanay doorka horumarineed ee ay muujiyeen waan awoodna iyo dhammaan isxilqaamayaasha Puntland wuxuuna xusay in dadaalkoodu uu wada u yahay dariiqa horumarka dalka wax qabadka dhalinyadu qabatay oo muuqda oo la soo bandhigay waa arkayay buundadii markii hore waxay ahayd meel abaara meel ay ka muuqato bus ka muuqato meel dayacan bay ahayd markii damana doog iyo qurux ba ka muuqanay iyadoo la dayac karo Jaafar Macalin Maxamed Puntland TV Garow gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti ayaa khudbad ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliya waxaana gudoomiyaha baarlamaanku ku dheeraaday ahmiyadda dawladnimo ee ka hana qaaday Soomaaliya sidoo kalena waxa uu sheegay in dawladda Jabuuti garab taagan tahay dawladda Soomaaliya wariyahayaga Ciise Cabdi Ciise ayaa warkani magaalada Muqdisho inooga soo diray gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta khudbad ka horjeediyay kulanka xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho taasi uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti ayaa u sheegay xildhibaanada golaha shacabka in Jabuuti ay Soomaaliya ay yihiin shacab walaalo ah oo aan marna kala maarmin dawladda Jabuutina ay garab taagan tahay dawladda Soomaaliya buuqashada waxay ka tahay xidhiidhka soo jireenka ah ee u dhexeeya labadayna shacab maanta Soomaaliya waxaa maraysa marxalad lagu farxo oo raajoween ka qabno nabadeeda iyo horumarkeygaba waxaan ku nimid inaan shacabka Soomaaliyeed isbarbar taagno waxa u nimid inaan nabadda u hilayno waxaan u nimid inaan midnimada iyo walaalanimada shacabka Soomaaliyeed taageerno gudoomiyaha walaalayaal maanta waxaan qof kaste oo Soomaaliya oo ka dan qaraya xaaladda dalkii ku jiro waajib ku ah in uu barbar taago dadaalka ay ku jirto dawladdu sidii nabad dhamaystiran xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayuu ka dalbaday
in ay isbarbar taagaan dowladda Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ah si Soomaaliya ay horumar ay u gaarto. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, magaalada Muqdisho. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowladda Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa magaalada Damalaxa Garre ee gobolka Sanaag ka dhagax dhigay saldhig waxaana warkan inoo faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Axmed Cagmadhige. agaasimaha warfaafinta wacyigelinta hay'adaha iyo dhaqanka madaxtooyada dowladda Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Damalaxa Garre ee gobolka Sanaag. ujeedka safarka agaasimaha ayaa waxa uu ahaa in deegaankaasi iyo deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Sanaag laga hirgeliyo mashaariic ugu talagashay dowladda Puntland. degmada Damalaxa Garre ee gobolka Sanaag ayaa waxaa laga dhagax dhigay saldhig booliskii ugu horeeyay oo dowladda Puntland ka hirgelisay deegaankaasi. dadka ku dhaqan deegaankaasi ayaa si diiran u soo dhaweeyay waxayna dowladda Puntland uga mahad celiyeen horumarka ballaaran ee gaarsiisay guud ahaan gobolka Sanaag. gudoomiyaha gobolka Sanaag, taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolka Sanaag, taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo maayarka degmada Damalaxa Garre ayaa munaasabadaasi ka hadlay. waxaan halka ku dhagax dhignay saldhig boolis oo ayna soo gaarsiiyeen agaasime Cabdirashiid, gudoomiyihii gobolka, taliyaha qaybta booliska Puntland, taliyaha daraawiishta Cabdullaahi Cumar. anina waa ka gudoonay, waa dhagax dhignay. insha Allah waxaan kaga faa'iideysan doonaa wax kasta oo dana oo magaalada u baahan tahay ama deegaanku u baahan yahay ayaanu insha Allah kaga faa'iideysan doonaa. halka aanu joogno waa magaalada Damalaxa Garre ee gobolka Sanaag ka tirsan. waxaan halka ka dhagax dhignay rugtii booliska ee labaad oo kamida 7 rugood oo isla sanadka gudihiisa inta aan dhammaan raba insha Allah taala gobolka Sanaag in laga hirgeliyo. bulshada reer Damalaxa Garre aad bay mahadsan yihiin jagadii iyo maxaan ku yiraahdaa ay ku deeqeen sidii saldhiga looga dhiso iyo arrimaha kale oo ay maartay diyaarka leeyihiin ba aad bay ugu mahadsan yihiin. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii maartay waxyaabaha maartay ay deegaanku rabaan ama odayaasha ama maamulka magaaladu in insha Allah taala ka caawin doono haddii alla idmo. taliye qaybtana way nala joogaa. goobtii oo ay bulshadu ku deeqday iyo iyadoo u heegana wax ku darsigii waxqabadka saldhigga waa sidii hore aan ku matalaynay oo warbixintii hore aan ku dhiibaynay oo aan ku ogeyn bulshadayada iyo dadkayagu inay waxqabsi diyaar u yihiin. waxay ka turjumaysaa xilliga in ay waddankooda wixii laga fulinayo ay diyaar u yihiin. mar labaad maanta oo bishii 23 tahay bishii 12aad sanada 2017 inaan saldhiggii labaad ka dhagax dhigno dhismihiisana la bilaabo isla bariba gobolka Sanaag. labada saldhig oo ugu horeeyay amarkii madaxweynaha iyo ballanqaadkiisii ahaa in 7 saldhig laga fuliyo iyo 3 MCH gobolka si degdeg ah. marka 4 saldhig oo loogu talagalay 45 casho gudahood inay ku dhamaadaan ay dhameystirmaan la bilaabo 3 saldhig ee kale ee ku xigay oo loogu talagalay in laga fuliyo gobolka Damalaxa Garre iyo shacabkeeda waxaan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee wadaniyada leh ee ay muddo yar gudahood dhulkii ay ku keeneen. annagana waxaan ballan qaadaynaa in berritaba annaga hadda naga diyaar tahay in la bilaabo. dhinaca kale Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl ayaa waxa uu kulan la qaatay isimada salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Damalaxa Garre ee gobolka Sanaag. Damalaxa Garre waa magaalo taariikhi ah. waa markii labaad ee aan imaado sanadkan gudihiisa. ballanqaad baynu kala tagnay in wixii kraanka ah dawladdu aanay magaalada loogu soo dhaqsado oo aan laga akran. marka koowaad waxaan idin wadaa salaanaadi ka wada madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas oo kaliya laaba. mar labaadka ballanqaadkii dawladda oo hor leh waxaan idin wadnaa
saldhig booliis iyo ciidankii ku hawlgeli lahaa degmada Damalaxgare waxaanu u soconnay maanta in la helo halkan saldhig loo helo saldhig booliis oo qofkii ama labadii isku qaldama lagu kala xidho meel lagu kala xidho in la dhiso dhulkiina bixisaan meeshaana la dhiso maxamed axmed salaad cagta xaajiga warbaahinta Puntland magaalada Baran ee gobolka Sanaag watahay daawadayaal wili waxaan ku guda jirnaa wararkii dunida telefishinka raadiyaha dawladda Puntland warar gudaha ayaan idin haynaa hase ahaatee wararka dibadda xukuumadda Bangladesh ayaa sheegtay in muslimiinta Rohingya dib loogu celi doono Myanmar kadib heshiis dhexmaray labada dal oo ay ku noolaadaan guryo ku meel gaar ah ama xerooyin wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali ayaa sheegay in maadaama guryihii tuulooyinka dadka Rohingya la gubay ay tahay in waqti cayiman ay ku noolaadeen xerooyin ilaa inta dib loogu dhisayo guryahoodii sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa tilmaamay wixii ka dhacay Myanmar inuu ahaa isirsifayn heshiiskii ay kala saxiixdeen Khamiistii dawladaha Bangladesh Myanmar ayaa waxa wadada u xaaraya geedi socodka dib loogu dadgureynayo qaxootiga Rohingya ee ku soo qaxay Bangladesh ciidamada Masar ayaa waxay sheegay in weerar dhanka cirka ku qaadeen mitidiinta la rumaysay inay yihiin kuwa fuliyay weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala Sinai weerarka ayaa waxa ku dhintay 235 qof oo masaajid halkaasi ku yaala ku cibaadeysanayay ciidamada Masar ayaa waxay sheegay in duqeynta la bartilmaameedsadeen gaarigii loo isticmaalay weerarka madaxweyne Cabdi Fataax Al-Siisi ayaa waxa uu wacd ku maray in weerarkaasi looga jawaabi doono gacan bir ah booliska deegaanka ayaa waxay sheegay in rasaas ku fureen dad cibaadeysanaya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AB Masar ayaa dagaal kula jirta kooxo diin u dagaalamaya oo gobolkaasi ku sugan kuwaas oo weeraradooda sare u qaaday tan iyo 2013 watahay daawadayaal intaasi waxay nooga dhawar wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa bay naga soo gaaray intaana warka gabagabayna ay idin xusuusiyo qodobada warkayga ugu doorka roona madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay oo daahfuray 16 bari ee koortaga daacaddiga jinsiga wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland oo xaflad dhiirigelin u sameeyay dhalinyarada isxilqaamayaasha waan awoodnaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dawladda Puntland oo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ka dhagax dhigay saldhig ciidan gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Jabuuti oo sheegay inay garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya kadib khudbad uu ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliya wararkan dibadda idinkaga haynana waxaa ka mid ah dawladda Bangladesh oo faahfaahin ka bixisay dib u celinta qaxootiga Rohingya watahay daawadayaal waxaa intaas inooga dhan war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa bay naga soo gaaray oo la socodsiinaya anigoo Mufar Cabdiwali Jaamaca intaanu warkan warka xiga ku kulmi doonaan inta warkayga la qayb qaadatayba waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah